بسم الله الرحمن الرحيم sidoo kale waxaan waraysi gaar ah isagana la yeelanay Jamcaale Abakar Ducaale oo ka soo jeeda gobolka Sanaag si bal uu faahfaahin kooban nooga siiyo meeydiga iyo dhulka ka baxaya meeydigu ugu horeyntii ku soo dhaw TV-ga Puntland waxaan rabnaa warbixin kooban gobolka Sanaag ee xijiga ama faleenku inta uu ka baxo goobaha uu ka baxo inaad warbixin yar oo kooban aad nasiiso aad iyo aad baan u salaamayaa TV-ga Puntland waa mahadsan yahay dhamaantiin waa mahadsantiin horta bahashu meeydigu Sanaag uu ka baxaa isagoo fara badan buu ka baxaa sida adigu meeydiga oo kale marka meeydiga waan u iibsanaa waan ka iibsadaa iman baan qabadsiinaa Sacuudiga aan qabadsiinaa marka adigu wuxuu ka baxaa buurleyda waaweyn ee golis buu ka baxaa wuuna iska noocyo badan yahay mid xabag leh wuu jiraa mid xabag yar wuu jiraa marka waxyaalo badan buu iska leeyahay marka meeydigu waa geed Ilaahay nagu manaystay oo alxamdulillah geedkaasi waxyaalo badan baa dadku ku qabaa ka soo guraya ka iibsanaya ka dhoofinaya dadba qof waxba ku sii qabaa marka xagga hadaan ka hadlo xagga qiimihiisa aad iyo aad adigu maqaali uma aha ka ugu qaalisan ugu qaalisan waxa la siiyaa adigu ilaa $6 kiiloogiisa ka ugu qaalisan marka la safeeyay oo meyd yahay safaayada noqdo ee laga dhigo midhaha xabagta adigu wuxuu ilaa 15 16 meelahaas la siiyaa laakiin markuu marbuushka yahay waa ilaa 5 ilaa 6 ilaa 4 inta u dhaxaysa insha Allah marka uu saas qiimihiisu yahay aad iyo aad buu marka adigu geedkaasi oo Soomaalida ugu baxaa oo ayna ka helaan dakhliyo fara badan haday tahay beestada haday tahay kuwa ganacsada haday tahay kuwa ka sii ganacsada marka saas uu yahay marka faafahintiisu distansiga gobolka Sanaag kulliga ma ka wada baxaa gobolka Sanaag gobolka Sanaag waxyaalo dhul badan oo ka baxaa jira dhul aan ka bixin way jirtaa hadda sida aaga Cergaabo wixii ka shisheeyay buuraleyda Siraadley gudno biyacas maxaan ku raadayay meesha la yiraahdo gudnahaadle meesha la yiraahdo bixin meesha la yiraahdo garshinbirood meesha la yiraahdo maxaan ku raadayay dhanqabley sida gobley oo kale sida ceel dibir sida bildaaley sida meesha la yiraahdo adigu meela barigelis meesha la yiraahdo galqawl meesha la yiraahdo shacab afdhubeed meelo fara badan buu ka baxaa meesha la yiraahdo Sanaag meelo badan buu ka baxaa meesha la yiraahdo raqas sida buraaxiis oo kale adigu marka buuraleydaas oo dhan waa ka baxaa inta badan dhulkaas oo dhan hadda ka wada baxayo dabcan faa'iido weyn bay bulshada u leedahay maxay saran lahayd bulshadaasi in laga xaqabtiro way u baahnaan lahayd bulshadaasi waxay u baahnaan lahayd sida dadka iibsada oo kale oo dhoofiya oo yar bay u baahnaan lahayn sidii in shirkada loo keeno oo bahasha si fiican macna ama suuq weyn loo raadiyo oo ka dhiga wixii adduunka bahashu iska qiimo badan tahay sida la sheego laakiin sidii halkan waa iska qiimo yar tahay hadii xaga tagto iska qiimo yar tahay laakiin waxyaalo badan bay u baahan tahay oo suuq ah oo dadka lagu taageero oo macna la soo kobciyo dan yarta oo lagu soo kobciyo marka waxyaalo badan bay u baahan yihiin oo saga suuqgeynto kale aad ugu baahan yihiin dhinaca wadooyinka gobolka Sanaag dib badan ku qaba dhinaca wadooyinka xaga buuraleyda dhul baa ninku kiishka halka ku soo saaraya oo kala digaya haadaan marka aad tagto mustacajab ku dhulka qaar ku kordhay waxa suranaysa dadkani waxay cunayaan waa xalaalba ma way macna waa wax qatar oo kala biimu gelinaya geedku mid baa arkaysa xaraar ka guraya beeyadaas oo ka guraya meeydiga dhul aad saas isugu tuuraya meel buu xarigu dadka qaar loo xidhaya soo jafaya xal laga soo saaray oo xariga xal laga soo dhaabo siliya xal laga soo saaraya marka waxyaalo fara badan oo dib badan bay ku qabaan dadku bahashaas dibta marka waxay u baahan yihiin
sida dawladaha waaweyn oo kale inay ama ka caawiyaan ama horumar loo sameeyo oo bahasha ama loo sameeyo sidii meel hatta loo sameeyo Soomaaliya hadii loo sameyn lahaa meel gaar ah oo kaligeed lagu habeyn lahaa oo lagu iibin lahaa suuq gaar loo sameyn lahaa dadku ka faa'iiday aad looga faa'iiday lahaa hadii iska biyo qof wali waa sidaa oo iska qiimo jabtay oo isku qiimo jabiyay wixii iska dawaqiyeen waxyaalo badan baa dib badan baa ka jirta bahasha gobolka Sanaag dhamaan wixii uu ka soo baxaa inta badan halkaan la keenaa Soomaaliya may gobolka Sanaag dhamaan wixii badan gobolka Sanaag ka soo baxa dhamaan xagaas badankiis wuxuu aadaa burcu aada Somaliland xaga burcu aada Somaliland burca ugu dhahaa wadada wax laga rabaa berbera wixii de ku dhow meelahan intan aagan dhowdhowna waxna waa soo aad xagna waa soo aadaan adigu de dadka kala din leeyahay moogtahay oo qof meel ku xiran dadka moogtahay hadda kan oo kale beedo laga raraa wax laga raraa berbera oo kale adigu de macnaha waa la sii tan hadda dil doono qaar moxorka kale waa la raraa berbera la geeyaa oo laga dhoofiyaa tan oo kale xagana la keenaa tan laga dhoofiyaa wax dhaafo weeyo ganacsigu is dhaafi karaa macnaha ganacsigu waa dadku dad isku mid oo isku xiran qaarkood baa halkan laga sii qaadaa dan la sii geeyaa dhinaca berbera halkan laga sii qaadaa xagga la sii geeyaa u dhici kartaa suuqa loogu xiranayo calaashan oo macnaha suuqa qof nooc buu suuqa ugu xiran yahay oo u shaqeeya qof nooc buu shaqeeya marka waxaad leedahay meelahaas ugu muhiimsan in la beego dawladuhuna ay ka caawiyaan dawladda cashuurta in laga dhimo oo la yareeyo hadda cashuurta oo kale anigu hadda beeyaan keenay tan hadda kan ka hadmiisana sidii aan ka soo qaaday gobolka Sanaag waxaan soo maray kantarooladan waxa laga yaabaa wax madaxaaga saan keenin gaariga 4,000 kiilo sida ama 3,000 kiilo sida waxa laga soo qaaday ilaa 1,500 gaaris dollar laba filis baa lagu oranaya kiiloogi waxa lagu dhufsanaya 3 filis ala kiilo sax lagu dhufsan gaarigu uu sido gaarigu sido 4,000 ama 5,000 sido ala 3 filis lagu dhufto waxay noqonaysaa 1,200 ama 1,300 dollar qofkii inuu bahashi leeska dadkii inay dhaqaalo ku sii yaraado oo wixii qofkii ka helaa qofkii 500 ama 700 ka helaa in xagan ay cashuurtii lagu kordhiyay cashuurtii oo kale oo ay baashada wax noqotay oo macnaha aanay system loo cashuurteeda u yaraad kaatay baa jirta oo badan baa jira oo cashuurta canshuurta dhinaca kale Somaliland tusaalahadan ka soo qaadano ma isku mid baa mise horta runtii anigu xagaan waan geeyaa marka adigu xagaas way qafiifsanta xaga hadda anigu gaariga marka aan raro anigu mar meel baan xagaan ugu raraa xagaan wataan xagaan ugu raraa labada ugu raraa runtii de qofka runta la rabo xaqada xaga gaariga marka hadda anigu aanu Somaliland ku wadno waxa laga yaabaa in gaariga dhan $100 naga sii baxo wallahi baan ku sheegmay ama 100 dhinacna 1,200 xagan dib badan baa jirta oo xaqii buug baa lagu soo baxay loonaya tareefa loonaya macna tareefo wixii qofkii horta wax ku joogaan mise kuma joogaan qofkii uu soo iibsaday wixii inay ku joogaan yeen kale horta aniga waxa marka gelin bukoonay waxa laga soo laakiin tareefadana loo jaray tareefada taa qudheedu tareefada way lahayd laakiin tareefada waxaan u lahayn oo laga daayay dadkii markii caawdeen de macna dadkii noqdeen awshada ka muujiyay wixii qofkii iska deyn noqotay wixii qofkii markii lagu qaal garayo cashuurtii de qofkii muwaadin weeyay hal su'aal aan rabaa inaan markaan ku weydiiyo waxay tahay ugu dambaysa kob yaa tiri kob mise karin arda baan ugu naanaa 500 oo arda baa gobolka Sanaag ilaa 700 gobolka Sanaag waxa ku yaala ardagaasi intee noqonaya midkiiba wuxuu noqon karaa ilaa 700 oo geed ilaa 800 oo 600 oo geed ilaa meelaha adigu buu noqonaya ardayga waliba marka intaas aan ku taala adigu qiyaas ahaan way hadii dad ka badan tahay laakiin qiyaas ahaan tan ku dhuftaan ugu weeyay asoo ka badan tahay labada gobol bari iyo Sanaag buu ka baxay meedigu iyo meedigu xijigu waa Sanaag iyo bari laakiin labadooda kunkiiba 100% waxa badan 100% bari gobolka bari ha lama dhigi gobolka bari aad ugu badan yahay meediga iyo moxorka aad ugu badan yahay gobolka bari aad ugu badan yahay kaaga mahad celinayna جمعة أبو كردو على تانك صاحب هاي مقعدنا داهر عبد القادر